waxaan joognaa waqtigii dhalinyarada waxaan u baahanahay in ay hesho isbedel lab ah shiidlo محمد الفا مرتبة وتاجاني محمد الفا محمد الفا مرتبة وتاج magacaygu waa maxamed yaasiin mahdi waxaan isu arkaa in aan bedeli karo siyaasadda qalafsan ee muddada 8 sano ah lagu hogaaminayay shiidlo 8 sano ee ugu dambeysay shiidlo waxa ay gaartay heer aanan weligeed gaarin ilaa ma ay isu hub qaataan ay kala furmaan beelihii ugu tunka weynaa Soomaaliya ee shiidlo waxaan doonayaa in aan furo u noqdo isbedelka shiidlo waxaan doonayaa in shiidlo ay hesho goobo caafimaad waxaan doonayaa in shiidlo ay hesho goobo waxbarasho waxaan doonayaa in shiidlo ay hesho xuquuq walba oo ka maqan waxaan doonayaa in shiidlo ay hesho cilbiyadyo insha Allah 8 sano aynu soo dhaafnay wax shiidlo ay ka faa'iiday ma jiraan siyaasadda in ay kala go'do mooyee iyo heerka maanta ay taagan tahay muhiim ma ahan dadkaygu in aad aniga iyo codeysaan balse waa in aad hoggaan u noqotaan isbedelka dhabta ah ee shiidlo ama aad u codeysaan waa in shiidlo aad ka horleexisaan dadka muddada 8 sano ah ku hogaaminayay wadada qalafsan ama godka ku hoobinayay insha Allah aniga waxaan isu arkaa in aan shiidlo wada wanaagsan ku hogaamin karo haddii aad u aragtaan qof iga wanaagsan waxaan soo dhaweynayaa in aad u codeysaan qofkaas waliba aniga ka shakhsi ahaan aan garab istaagaya marka laga reebo shakhsiyaadkii hore ee 8 sano la soo dhaafay nagu hogaaminayay wadooyinkii qaldanaa marna ma aqbalayno inaan gacmaheena ugu codeyno burburinta shiidlo dad ka shaqeynaya ma aqbalayno in aan god u horseedno beelaha shiidlo marna ma aqbalayno in annaga gacanteena isu toogano waxaan aaminsanahay in shiidlo mid ay noqonayso haddii ay fahmaan dadka hagardaamada ku haya waxaan idinka codsanayaa haddii ilaahay yiraahdo in aad isiisaan codkiina mid walba oo idinka mid ah codkiisa maanta ayuu ii muhiim yahay badbaadada shiidlo waxa ay ku jirtaa afkiina maanta maalin ay wax tarayso oo maanta aan ahayn ma jirto aan samata bixino shiidlo haddii aad maanta codkiina isiisaan waxaan noqonayaa mid baahidiina il gaara u lahaado sida hadda maalin walba idinla taagan ma noqon doono sida shakhsiyaadkii hore kale ma noqon doono mid hoteelada Muqdisho midka ugu qaalisan jiifan doono ma noqon doono nin xuquuqdiina ku tunta ma noqon doono nin iibsada scholarshipka idinkan li siiyay ma noqon doono mid maalinkii la doortay maalinta kala doorashadeeda ku soo laabtay jawhar waxaan noqon doonaa haddii rabbi raali ka noqdo mid jawhar idinkula nagaada waxaan noqon doonaa meel walba oo aad ku nooshihiin inaan idinkula noolaado waxaan noqon doonaa mid dhibaatada idinla qaybsada noqdo sida fatahaada cudurrada wax walba oo soo gaara shiidlo mid la qaybsada sida hadda aan ula qaybsado oo kale ayaan noqon doonaa insha Allah waa haddii aad codkiina isiisaan oo ilaahayna ii saamaxo insha Allah waxaan codka martigu ahay saddexda beel ee lisu yiraahdo talweyno haddii ay isiyaan waxaan si daacada codkaasi u adeegi doonaa lixda beelood ee lisku yiraahdo shiidlo insha Allah haddii ay dhacdo inaadan aniga i dooranin oo aad u aragtaan qof iga wanaagsan inaad dooranaysaan ku doorta in uu samata bixin karo shiidlo ku doorta in uu horumar u horseedi karo shiidlo yeesan noqonin inaad codkiina siisaan dadkii 8 sano hagardaamada nagu waday la laabay halkaana maanta na soo istaajiyay insha Allah magacaygu waa maxamed yaasiin waxa inoo ballan ah isbedel lab ah iyo horumarka shiidlo insha Allah maal raadis maahe ogo maalin iyo haweenba madaxow u xirtaa ala madaxow u xirtaa mataaninta shacabkee waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso
kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.